maogtahay inay jirto meel dunida ka mid ah oo calaamad su'aal weyn ay saaran tahay meel kumanaan qof boqolaal maraakiib iyo diyaarado ay ku baaba'een iyadoo raad aan laga helin. Dadka qaarkood waxay yiraahdaan waa xarun junni, qaarka kalena waxay yiraahdaan waa xarun makhluuqaad shisheeye. balse maxay tahay xaqiiqo cilmiyeed ee ka dambaysa saddexgalka Bermuda? Halkan waa kanaalkeena cusub ee fahamka nolosha. Waxaan ku soo gudbinaa xaqiiqooyinka iyo xogta caalamka. Subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada xiga. Bermuda Triangle waa ku yaala dhanka galbeed ee waqooyiga badweynta Atlantiga. Waxay u dhaxaysaa saddex dhibcood oo kala ah Miami, Bermuda, Puerto Rico. Inkastoo aysan ku jirin khariidada rasmiga ee dunida, haddana magaceedu wuxuu cabsi badan ku abuuray dad badan tan iyo bartamihii qarnigii 20aad. Muuqaalka saddexgalku wuxuu ku fadhiyaa baaxad gaaraysa 1.3 milyan oo kiiloomitir laba jibaaran. Waa marin aad u mashquul badan oo ay maraan maraakiibta ganacsiga iyo diyaaradaha ugu badan adduunka. Maxaa keenay cabsida? wax walba waxay bilowdeen sanadkii 1945 markii 5 diyaaradood oo ciidan Mareykan ah ay si lama filaan ugu baaba'een aagaan. Wax raad ah ama hara ah lagama helin diyaaradihii, xitaa diyaaradii loo diray inay soo badbaadiso iyana way baaba'day. Tan iyo xilligaas waxaa la sheegay in ka badan 75 diyaaradood iyo boqolaal maraakiib in ay halkaasi ku luntay. Sheekooyinkaas waxay dhaliyeen fikrado ah in meesha ay leedahay awood ka baxsan dabeecadda. Saynisyahanada iyo khubarada baddu waxay soo bandhigeen dhowr sababood oo macquul ah oo sharaxaya dhacdooyinka. Bermuda waa mid ka mid ah goobaha naadirka ah ee compass, kaasoo ah qalabka lagu ogaado jihada oo mararka qaar tilmaama true north halkii uu tilmaami lahaa magnetic north. Tani waxay keentaa in duuliyaashu ay lumiyaan jihada rasmiga. Aaga waxaa ku badan duufaano xooggan oo si lama filaan ah u soo baxa iyo mowjado dhaadheer oo gaaraya 30 mitir. waxaa jira cilmi-baaris sheegaysa gunta hoose ee badda waxaa ku jiraan godad laga soo daayo gaaska methane. Haddii gaaskan uu qarxo, wuxuu yareeyaa cufnaanta biyaha, taas oo keenta in markab kasta oo dushiisa maraya uu si degdeg ah u dego. Maadaama aan nahay dad muslimiin ah, waa inaan ogaanaa wax kasta oo dunida ka dhaca waxay ku dhacaan amarka Alle. Ma jiraan wax Alle ka qarsoon ama isaga ka awood badan. Inkastoo ay jiraan sheekooyin sheegay in aagan uu yahay xarunta ibliiska, haddana ma jirto daliil rasmi ah oo diini ah oo taas qeexaya. Badda waa makhluuq Alle. Dhacdooyinka ka dhacan waa qayb ka mid ah mucjisooyinka iyo dabeecadda Alle u qadaray caalamka. Inaan u aragno cilad dabeecad ama khatar deegaan ayaa ka habboon inaan aaminno khuraafaad aan asal iyo raad toona lahayn.